quraanka iyo fanaaniinta waan maqlay horta warka qof mobile ku sitaana uu yara tusay ninkaan anagu eegay fanaanka wuxuu akhriyay suuratul asr laakiin uu calalinay hebel waa quraan ruug Soomaad maqal aad buu jajabinay marka waxa laga yaabaa iyagu inay rabadaanta niyad wanaag la yimaadeen oo ay isdaahdeen heesii joojiyo oo bal xagga quraanka u kaca inay isdaahdeen oo marka dadaal baa horta laga yaabaa inuu halka la maray laakiin quraankii markuu qofku akhriyo sidoo akhriyo quraanka ilaahay inuu dad jajabiyo qofku ku ciyaara maxay tahay xukunkeedu waa dambi way rahimahullah imam ibn al-Jazari kitaabkiisa jazariyada marka uu ka hadlayo waxa uu leeyahay wal aqd bit tajwid hatm lazim man lam yujawwid al-Qur'ana athimu لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة والأخذ بالتجويد حتم لازم إن تجويد القرآن كالله أخريا وواجب من لم يجود القرآن آثم قف كان قرآن كإلهي تجويد ودنبيله قفرس إلهي نوحل ورتل القرآن ترتيلا قرآن كالتجويد يا هباه marka halka mushkiladu uga soo baydhaysaa waxa weeye waa taimika aynu sheegayno al-ghaayatu la tubarriru al-wasiila iyadoo niyadaadu ay tahay quraanka rabadaanta ku dhawow oo dadaalba haddaad calaaliskiisa iyo raabsigiisa u sii martay iyo jajabintiisa sax maaha waa fiican tahay fanaano haddaad quraanka ku dadaalaysa heestiis kaga tag iyo durbaanki iyo dig iyo damti allana ka idinka daweeyo laakiin quraanka barta quraankii baro bawsiga ka daayo si fiican u bararag iyo dumarba adigoo asturan akhri oo aadaabtiile oo quraanka kariimka waxa uu leeyahay aadaab uu leeyahay marka lagu dhaqmayo marka la isku daweynayo marka la akhriyo aadaab uu leeyahay aadaabtiisa ka waxa ka ah inuu qofku tajwiid ku akhriyo iyo si fiican inuu akhriyo jabinay waxa laba ka ah inuu shariicada waafaqsan yahay oo qofkii madax qaawan ama caasiya inuu ila kalaamka Ilaahay ku ciyaadaysanaya horta ha asturnaado marka aadaabta inuu ilaaliyo qof waa taaynu ku waaninayna waata oo tartankan akhrinta intaanad soo gaarin maxaa ka horeeya tartankii barashada horta soo mara kadibna kan ilaa ardaydu waa kuwan ku tartamayeen kan akhriskana soo gaara waxa ku sii xiga niyad samaana niyad waa inaanay noqonin sidoo kale aadaabta waxa kamid ah tamdiid iyo tamqiid tahriif keenan inaan lagu akhriyo oo naqamka habka loo akhriyo quraanka uu ka duwan yahay habka heesta dadka qaar kood bad aragta soodaantii ha u badnaadeen iyagoo asmaada Ilaahay miyuusu ku garaacayo jiijidaya sidii heesaha marka quraanka iyo asmaada Ilaahay iyo adkaartu sida heesta maaha waa kala laba baab oo kala duwan weey kana shaytaanka ka dambeeya kana Ilaahay baa soo dajiyay subhanahu wa ta'ala qulubtu la hadlaa oo uu qooya oo qiiro gaar ah buu leeyahay naqamkiisa habka lagu akhriyo intaasaynu ka oran lahayn